aqoonyahan waxgarad iyo odayaal iyo caaqil ka soo jeeda bartamaha iyo bariga magaalada Hargeysa ayaa raalingelin waxa ay u direen taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliland Cabdilaahi Fadal Iimaan hadalla ka soo yeedhay wariye Cali Seenyo dhawaan odayaashan iyo waxgaradkan ka soo jeeda gobolka Maroodijeex ayaa waxa ay maanta shir jaraa'id oo ay warbaahinta kula hadleen Hadwanaag ayaa waxa ay ku sheegeen inay raalingelin ay u dirayaan taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliland waxaana yiraahdeen sanadka booliska Soomaaliland waa nin waaya arag ah waa ninka dalkan ka curiyay nabad salka loo dhigay runtii horena waxaan leeyahay in bil sharaf la siiyo maamulka booliska ay ku qurux badnay in sal rafasdi dacwooyinka hadii aad baan waxaan leeyahay bariyahan dambe waxa batay aflagaadadii xukuumadda 24 saacadood loo soo jeedinayay in bulshada qaarkeed loo soo jeedinayay xubnaha ka hadlaya 24 saacadood ama jaran ama muusana waxaan aaminsanay in duminta dalkaba mashruuceeda soo qaateen duqaalaan 10 qof ana caleema saarin ba habeenay maalinba media u taagan waa aflagaadeynaya Cabdilaahi Fadal hadalka xaal baan ka siinayna halkii boqolaan qadanaynin wax qabtana ma ahayn xukuumadda muusana maanta hore u soconaysa horena waxaan ugu yiri anigu yaagay dibli waxa bartay dhimbaroodi ay ku fadhiyaan maanta muuse iyo daba jankuba waxa la sidaraa Cali Seenyo isagoo sheeganaya abgaan isagoo sheeganaya aqoonyahan isagoo sheeganaya neergarad isagoo sheeganaya suxufi inuu maanta waxa weeye personal attack sameeyo وجلنا كي عندك بوليس جمهورية الصومال سي أنشخ دراء ووقف وحنطلق سنة على سنيو لو ينهضوك فوق عندنا مرسلوك عبارك اسكتنا هذا الخاوي حوي إنه سدك دقة وحال ورا لو قبحيه أنا قاعد بدرتي مجرته قد ما أنت ناديك سنة صونو قلودين أنا مجرته لكن شرعين ضمير هيك عن فرية qofka mas'uuliyadda qaranka haya ee lagu gafo inaanu u hiilna xaq baan u leenahay waa ayaan dar laalay in cali maanta inuu dad iska soo geliyo isagoo suxufiya oo uu yiraahdo dadkaas waa lagu gafay waa la xaq u lahayd ugu horreyn cali waxaan sheegayaa cali horta Djibouti maanta leeyahay laba dal baa la culeysiinayaa Djibouti laba dal baa la culeysiinayaa cali waxa filayaa inuu qarnimada Djibouti ku gafay ninka maanta soo duulay Soomaaliland waxay ninaan u jeedin inuu dalku noqdo dawlad cadliya kolka kaawan ka soo horjeedna maanta ninka soo gelaya waxa weeye inuu sharci ku soo galo isagoo kiisa u sita kolka ama madaxweynaha noqdo ama janka booliska noqday waxaan ka soo bixin oo jarjaraan soo bixin ninka yiraan ku soo galo been buu sheegay wadaha Soomaaliland ninka doonaya inuu mashruuc ku soo qaato annaga ka diidnay oo arbeen sheegayna qumaati waxa wadato waxadayso sayshayna daleecayso Djibouti oo walaalaha aan leenahay isku mid oo mucaahada naga dhaxayso dooni mayna annagu taa tahay ninka aad iyo aad baan ku leeyahay dib uga noqo xaalka Djibouti iyo Soomaaliland laba ku coloobaya maaha kelmadda Cali Seenyo meelkiisa laguma coloobi karo waxaan leeyahay Cali Seenyo halka waad ku gaftay dib arrimaha dib uga noqo Cabdilaahi Fadal maanta nin kelmad la yiri ku dhaleecayo Soomaaliland wuxuu qabanaysaa maaha waxaan leeyahay war madaxweynaha iyo Soomaaliland madaxweynaha iyo jananka bilayska ee bari iyo galbeed meel kasto ay taagan tahay hariya habeen u taagan ee ku ilaalinaya wax laga liqi karo way wax la soo gali karo waxaan leenahay ninka isiraada hawl yar ku galo ku gali karmayst Umar Abu Ali Bulsha TV